ma rumaysan doontid naagtan waxa ay ku samaysay masaajidka gudihiisa ayadoo dadkii masaajidka ku jirayna ay salaada Alle u taagnaayeen. haddaba intaynaan muuqaalka u gudagalin waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid. maalin maalmaha ka mid ah gabar reer galbeed ah ayaa waxa ay timid waddan ka mid ah wadamada muslimiinta si ay u soo booqato mid ka mid ah saaxiibadeed kaasi oo ay iska barteen baraha xiriirka bulshada ee internetka. markii ay timid waddanka waxa ay bilowday inay aad uga dalxiisto waddanka gudihiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayadoo dhex socota magaalada ayaa waxa ay aragtay masaajid lagu dukanayo. waa ay la yaabtay waayo waxay ahayd markii ugu horeysay ee ay aragto masaajid weyn oo lagu cibaadaysanayo. waxay kaloo aad u la yaabtay dadka masaajidkaas ku jira tirabadnaantood. intaasi kadib waxa ay soo aaday dhanka iyo saaxiibkeeda waxayna weydiisay meesha ay soo aragtay waxa uu yahay iyo dadkaasi waxay ahaayeen. markaas ayaa waxa uu u sheegay in dadkaasi ay u dukanayeen Allihii abuuray dartiis. sidoo kalena waxa ay u sheegtay in salaada aysan ka doorsanaynin dadka muslimiinta ah wax kasta oo caalamka yaalo. gabadhan oo ahayd gabar aad u qurux badan ayaa waxay tiri aniga ayaa dadkan ka weecin doona oo salaada ay ku jiraan ka mashquulin doono. marka ay sidaasi dhahaysay waxa ay isu arkaysay inay tahay gabadha ugu quruxda badan gabdhaha caalamka ku nool ayadoo isku qancisay inay tahay gabar soo jiidasho badan ha noqoto quruxda jirka iyo fasaaxada hadalkaba. intaas kadib toos ayaa waxay u soo abaartay dhanka iyo masaajidkii oo salaadii lagu jiro. waxay istaagtay safka hore hortiisa ayadoo bilowday dhaqdhaqaaq dheel ah si ay dadka uga mashquuliso salaadoodii. arrinka yaab kale ee ay aragtay ayaa waxa uu noqday maba jirin mid ka mid ah dadkii salaada ku jiray oo dhankeeda soo jaleecay. arrinkaasna aad ayay ula yaabtay. markii ay jameecadii salaada dhammeeyeen ayaa waxa ay soo abaartay dhanka iyo imaamkii. markaas ayaa waxay weydiisay waxa uu asiga iyo dadkan samaynayeen. markaas ayaa waxa uu u sheegay in ay ku jireen xaalad khushuuc ah iyo la sheekaysi ay ku macaansanayeen kaasi oo ka dhaxeeyay ayaga iyo Allihii abuuray. waxa uuna hadalkiisa sii raaciyay inaysan jiri karin qof mashquulin kara marka ay xaaladaasi ku jiraan. markaas ayaa waxay tiri kuma qancin jawaabtaada. waxa uuna u jawaabay midaasi waa xiriir aanan dareemi karin qof kasta. markaas ayaa waxa uu maqashiyay qaar ka mid ah aayadaha qur-aanka kariimka qowlka Eebe. intaas kadib gabadhii waxa ay dareentay dareen aysan weligeed dareemin. waxay dareentay macaanka qur-aanka kariimka iyo degnaanta laga helayo. markaas kadib ayaa imaamkii masjidka gabadhii waxay ka codsatay inuu sameeyo xarakaadka salaada ee ay dadkan samaynayeen si ay u barato. markaas ayuu imaamkii ku yidhi waxaa kugu waajib ah inaad xijaabka xidhato aadna soo qabaysato aadna weys qaadato. wixii intaas ka dambeeyana waxaan ku bari doonaa salaada. sidii ayay samaysay. waxa uuna baray salaadii ay aad u jeclaatay waxayna ka codsatay inay diinta islaamka soo gasho. intaas kadib ninkii imaamka ahaa waxa uu u qabtay tawxiidkii sidii ayayna diinta ku soo gashay. gabadhan waxa ay diinta qaadatay kadib markii ay beenisay in salaada laga helayo raaxo iyo khushuuc. shiikhiina ma uusan cayin ee waa uu dejiyay sidii ayayna diinta islaamka ku soo qaadatay. dulucda qisadana waxay tahay in marka aad qof qalad ku aragto aadan degdeg eed iyo canaan dusha kaga tuurin waayo diintu waa nasteexo ma ahan qaylo iyo hanjabaad. intaas ayaan muuqaalkeena maanta kusoo gabagabayn doonaa. haddii aad ka heshay waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. fikirkaagana dhanka hoose ee kommentiga noogu reebto. mahadsanid.